بسم الله الرحمن الرحيم كلن wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni xog iyo xaqiiqo oo aad maalin walba ka daawataan SSTV iyo Jigjiga Cable waxaan maanta qaybtan ku falanqeyn doonaa wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan waxaana inoo falanqeynaya wariye Bare Ilka Case haye Bare watay maxamed aad ma san tahay daawadayaasha kulli barnaamijka ku cusubta ama aanayna su'aal la soo weydiin doonaa maxamed aad ma san tahay Beirut iyo wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay habeen hore haddii aan daawadayaasha macluumaadka arintaas la xiriir la wadaagno waxaan ogeyn in qarax aad u weyn oo aad u baaxad weyna inuu ka dhacay magaalada Beirut habeen hore maqribkii kaas oo galaaftay nolosha dad badan ay ku dhaawacmeen oo kumanaan gaaraya kuwa kale ilaa iyo hadda la baadi goobayo raq iyo ruux in la helo wararkii ugu dambeeyay ee Beirut naga soo gaaraya iyo macluumaadka la xiriir qaraxaasi waxay sheegayaan in dhimashada ay gaarayso 137 ruux dhaawac wuxuu gaarayaa ama uu ka badan yahay ilaa 5,000 oo ruux waxaa socda weli dadaalo lagu baadagoobayo dadka raqiya ruux aan lahaynin burburkii qaraxaasi ka dhashay waxa weeye uu qariyay ama maartay dhismayaashii burburay ee hoosta uga jira waxaa iska ka qayb qaadanaya ama isa kaashanaya hawlaha gurmadka ee dadka lagu baadagoobayo in lagu soo badbaadiyo ama raqiya ruux lagu helo ciidamada xoogga dalka ee dalka Lubnaan waxa weeye sidoo kale waxaa ka qayb qaadanaya hay'adda reer Cross ee dalka Lubnaan iyo sidoo kale dad mutadawiciin ah oo iyagu waxa weeye doonaya ama iskood u shaqeynaya oo doonaya in maartay ay ka qayb qaataan hawlgalka ama maartay lagu soo badbaadinayo dadka waxa weeye burburka ku hoos jira haddii aan fiirino qaraxa iyo baaxadda uu lahaa iyo sida maartay caalamka ay uga gilgisheen dhankan UK oo kale khubaro ka tirsan jaamacadda Sheffield ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi awoodda uu lahaa 10% ay u dhiganto atomikadii lagu weeraray ama qaraxyadii ama hubkii nuclearka lagu weeraray Hiroshima magaalo ka tirsan dalka Japan dagaalkii labaad ee dunida marka wali waxaa socda hawlgallada lagu baadigoobay dadka ku hoos jira burburka uu qaraxaasi sababay sida aan horeyba dadka ugu sheegnay maado la yiraahdo ammonium nitrate ayaa sababtay oo waxa weeye qaraxaasi oo macnaha ku jirtay bakhaar ku yaala dekedda magaalada caasimadda Beirut ee dalka Lubnaan madaxweynaha dalkaasi oo hadlay waxa uu sheegay in dalka la geliyay 2 isbuuc oo waxa weeye gaar ahaan magaalada waxa weeye Beirut oo caasimadda ah 2 isbuuc oo emergency ah maartay degdega taas sidoo kale xukunka magaalada caasimadda awoodeeda waxa lagu wareejiyay ciidamada militariga ee dalkaasi madaxda intooda badan waa ay hadleen waxa aad loogu goodiyay marka dadka mas'uuliyadda meesha ay waxa weeye kiimikadan taale iska lahaa in waxa weeye cadaalad loo horkeedo doona sidoo kale dadkii iyagu mas'uuliyiintii dekedda ee hawshan lagu tuhmay in mas'uuliyaddeeda lahaayeen ama dayac dhankooda ah ay hawshan sababtay iyagana xabsi guri laga dhigay dhinaca kale wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in maxkamadda caalamiga fadhigeedu yahay Hague oo iyadu baaraysay kiiska dilkii ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Rafiiq Xariiri oo sanadkii 2015 qarax gaari lagu dilay oo lagu waday in berri oo Jimcaha la soo saaro macluumaadka la xiriiriyay cidii ka dambeysay in iyadana ay dib u dhigtay maxkamaddu ay ku dhawaaqdo hawshaas iyada oo markaasi eegaysa waxa weeye ama ixtiraamaysa waxyeelada dadka waxa weeye reer Lubnaan gaar ahaan caasimadda ka soo gaaray dhibaatadii dhacday waa tahay ilaa iyo hadda ma jiraan dad loo xiray qaraxaasi ilaa hadda marka laga rabo mas'uuliyiinta waxa weeye iyagu dekedda oo xabsi guri laga dhigay dad gooni ah oo cayiman oo dawladdu waxa weeye ama maartay lama hamaanka ay xireen ilaa hadda ma jirto oo dawladdu ay shaaca ka qaaday laakiin mas'uuliyiintii dekedda magaalada Beirut oo iyagu dayac dhankooda ka yimaaday lagu tuhmay inuu hawshan sabab u ahaa iyo xabsi guri laga dhigay dhinaca kale madaxa kastamada ee dalka Lubnaan iyo isagu waxa uu sheegay in hay'adda uu madaxda ka yahay ay horay u soo saartay digniin ah in kiimikadan laga qaado dekedda iyo maartay bakhaarada ay taalo balse hawshaasi aysan dhicin wax dhig ah jalaq loo siinin dawladda dhankeeda iyadana qayb ka qaanaysa eedan maadaama iyada lafteedu aysan tallaabo hawshan ka qaadin horay maadaama cabsi laga qabay in hawlaha noocan oo kale ay dhacaan khubarada jaamacadda Sheffield ee dalka UK waxay sheegeen adduunka inta la og yahay
qarax aan nuclear ahayn oo kiimikadan ay sababto inuu ahaa kii ugu saameynta badnaa ama ugu awooda badnaa ee caalamka ka dhaca inta adduunka la ogyahay weeye marka waxay dareemi kartaa baaxadda uu lahaa iyo dhibaatada ka dhalatay weli gurmadka socda ee ku aadan bal in raq iyo ruux dadka dhismayaasha ku hoos jira in wuxuun la helo oo lagu soo badbaadiyo hadduu dhintana la aato haddii uu nool yahaan lasoo badbaadiyo waxaa jirta sidoo kale oo iyadana culays ka jiraa isbitaaladii waxaa jira isbitaallo fara badan oo magaalada waxaa weeye caasimadda Beirut ku yaalla kuwaas waxaa weeye qaraxu uu burburiyey baa jira waxaa jira kalkaaliyaal caafimaad iyo lafskooda waxaa weeye qarax uu ku dhintay iyana u geeriyooday dadkii marka maadaama ilaa 5,000 ay ka badan yihiin dadka dhaawacyada ah waxaa aad maartay culays uga yimaaday goobihii lagu dabeebi lahaa dalal badan oo caalamka haya qayb libaax leh iyaguna ka qaadanaya sidii ay gurmad ugu fidin lahaayeen ee xitaa maartay la isugu day lahaa in bal dhaawacyada ay iyagana dalalka dibadiisa lagu soo daaweeyo inkastoo ognahay dowlimaadiyada caalamiga dalal badan caalamka ay xilibnaayeen oo xanuunka halistaha uu jira xaaladda halkaas maraysa qaraxa marka wuxuu ku soo beegmay maxamedow xilli dalkaasi ay ka jirtay xasarad dhanka maartay dhaqaale xumo aha caafimaadka uu liita korontadii biyo la'aan oo dadka shacabka ay mudaharaadyo sameynayeen iyo ku eedanayay mas'uuliyiinta dawladda dalkaasi in ay ku guuldareysteen in ay maaro u helaan bal xaaladan adaga dalkaasi ka jirta dalkan waa dal waxa weeye awoodo dhowr ay ka jiraan dad aan muslim ahayn baa jira dad shiica jira dad sunniyiin jira oo awoodu ay u qaybsan tahay nidaam qaam federaal ah ka jira oo waxa weeye awooda u kala qaybsado oo aanuna hadda sida macnaha madaxweynuhu waa nin aan muslim ahayn ra'iisul wasaaruhu waa nin muslim ah weeye awoodu marka way kala qaybsan tahay dalkan marka iyadoo xasarada ay ka taagnaayeen dhanka diimaha xitaa ah iyadoo ay madaahibta iyadoo ay ka taagnaayeen dhaqaale xumo waxa weeye muddooyinka dambe ka jirtay oo dadku ay ka cabanayeen hawshaasi oo biyihii korontada xitaa ay galeen muxuu ahaa hakad ama maartay ay aad u yaraadeen ba haddana hawshan timaaday Beirut marka waxay taagan tahay yaan u ooya yaanse ka ooya xaalad adag bay ku sugan tahay culays ugu darsamay xaalad marka halkaasay marka sidee ayay uga falceeyeen wadamada caalamka islaamka wadamada caalamka marka la fiiriyo maxamedow aad bay uga falceliyeen oo tacsida iyo maartay xanuunka waa ay la qabsadeen shacabka reer Beirut iyo xukuumadooda maadaama aan ogeyn dhibaatada meesha ka dhacday inay ahayd mid aad iyo aad u ballaaran waxaana madaxda caalamka intooda badan si shalay aan daawadayaasha ula wadaagnay ay sheegeen inay qaybtooda dal walba uu ka qaadanayo waxa weeye sidii uu gurmad ugu fidin lahaa dawladda waxa weeye Lebanon ay gacan uga siin lahaayeen sidii waxa weeye bal ay u maareyn lahayd mashaqada dhacday dalalka ugu waaweyn waxaan ka xusi karaa Mareykanka UK Jarmalka Faransiiska Turkiga iyo dalal kale Malaysia oo iyagu waxa weeye ku baaqay intooda badan ba ama ku yabahay inay gacan ka qaadaan dalalka islaamka markaan fiirino khaliijka dalka Sacuudi Carabiga oo kale dalalka ka hadlay kamid ahaayeen Qatar oo kale iyaguna sheegay inay gacan ka geysanayaan mashaqada meesha ka dhacday Beirut 300 oo kun ka badan oo qoys baa ku gurya beelay oo soo istaagay guryo la'aan iyo hooy la'aan iyo cunto la'aan iyo koronto la'aan iyo biyo la'aan iyo caafimaad la'aan ay ku dhacday duqa magaalada Beirut Marwan oo isagu dabcan ka soo muuqday warbaahinta markii qarax uu dhacay isagoo ilmeynaya wuxuu sheegay in ay dawladda dalkaasi isku dayso sidii bal dadkaasi 300 oo kun ka badan ee Beirut dhibaatadii ka dhacday ama mashaqadii ka dhacday ku barakacay loogu raadin lahaa ama loo siin lahaa maartay hooy ay maartay dhaxantii iyo waxa weeye ay dhibaatada ay ka galaan biyo cunto maadaama xaalad adag ay soo wajahday marka Beirut xaalad aad iyo aad u adag oo murugaha ayay waxa weeye ku jirtaa xaalad baroor diiq ayay ku jirtaa saan sheegnayba dalka 2 isbuuc oo waxa la geliyay caasimadana ugu sii daran tahay waxa weeye xaalad degdeg ah magaalada caasimadda ahna waxa guud ahaanba awoodeeda lagu wareejiyay oo gacanta loo geliyay ciidamada militariga waa tahay ugu dambeyn bare sidee ay ahayd xaaladda dalka Lebanon ka hor qaraxa sida aan horeyba sheegnayba waxa ahayd dal horeyna dhibaatooyin fara badan u soo maray haddana xaalad adag iskaga jiray oo dhaqaale darro ah mudaharaadyo ay dadku dhigayeen ka cabanayeen dhaqaale xumada dalka ka jirta maamul xumada dawladda dalkaas ka jirta ay sababtay biyo la'aan jirtay koronto la'aan jirtay adeegii caafimaadka waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha bini'aadamka iyo xitaa xayawaanka oo iyadana aad u liidatay marka xaaladii adkayd bay xaalad adag
ugu darmatay marka waa murugo iyo culays iyo dhibaato iyo mashaq dulsaar weeyaan marka halkaas ay xaalku u maraya waxaan rajaynaynaa inay kasoo kabtaan dadka reer Lubnaan dhibaatada ku dhacday laakiin sidii laga soo kabtay aad bay u adagtay maadaama baaxadda qaraxa meesha ka dhacay ay tahay mid aad iyo aad u culus ilaa hadda dadku ay burburka ku hoos jiraan dhismayaashii soo dumay iyo maartay saameynta ka dhaltay waa tahay bara ilka case aad ayaad u mahadsan tahay intaan ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni xog iyo xaqiiqo inta aan ku kulmayna barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh